بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan halkan jecelahay inaan salaan uga diro dhammaan shacbiyada Soomaaliland gudaha dibadda meel ay joogaan oo ugu horeeya madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. maanta waxaan halkan idinka soo gudbinayaa warbixin yar oo kooban oo ku saabsan shaqada aan ka hayo dalkan Sweden, xaaladda dalkeena uu marayo, isbedelka siyaasadeed ee ka yimid Geeska Afrika, danaha aynu ka leenahay dalkan aynu joognay Sweden iyo roolka uu ka leeyahay maxay arrimaha Soomaaliya Somaliland, wada jirka iyo wada shaqaynta iyo muhiimadda ay leeyihiin in shacbiga Somaliland gudaha iyo dibadda meel ay joogaan ay ka mideysnaadaan isla mar ahaantaana isbarbar taagaan danahooga guud ee ka dhaxeeya, ha noqoto jaaliyadaha, ha noqoto qof kasta oo mas'uul qaran ah oo ahaata safaaradaha ha noqoto amba cid kale oo masab kala haysa ha noqoto, iyo ku soo gabagabeynayo waxqabadka wasaaradda arrimaha dibadda Jamhuuriyadda Somaliland ay dalka u hayso iyo maxay waxaan arkay bariyihii ugu dambeysay cabashooyin ka imanaya siyaasiyiin iyo dad kala duwan oo waxa ka sheegaya amba ku dhaleelaya wasaaradda arrimaha dibadda. runtii haddii aan ku horeeyo xaaladda dalka Jamhuuriyadda Somaliland waxa runtii waxaan ku faana ah in sanadkii hore dabayaaqadiisii aynu ku guuleysano doorashadii madaxweyne oo lagu soo doorto codka shacbiga oo ahayd madaxweynihii shanaad. run ahaantii waxaan kaga duwanahay Geeska Afrika oo waxa dadku nagu tamaniyaan dad badanna oo jaarkeena aan u suurtagelin. waxa doorashadii ay keentay oo abuurtay adduunyada sida ka dhacda xanaf, runtiina waxay ku ahayd caqabad inaga guud ahaan shacbigeena Somaliland iyo waliba gaar ahaan jifooyinkii amba deegaanadii ay dagaalka sokeeye ka dhaceen. taa laftigeedu haddii meel ku dhigto jirku isku wada xanuunaa, annaka wasaaradahaana kulley hawshaasi shaqooyinkayga iyana waxay ku sababaysay in waxyaalo badan ay maxay u dhinto. runtiina maanta waxa farxad ah in weygii hore insha Allah uu soo dhamaatay hawshaasi, qaranka iyo xukuumadda iyo madaxweynuhuna maxay una duceeyeen una hambaliyeen. runtiina waxa weeyaan waxaan isleenahay wax walba waxa ka kow ah aqoonsigeena iyo wada jirkeena inaga oo mid ah oo dalka gudihiisa ku midaysan, markaas aan tadabadana wax ka qaban karayna. ta kalena aan doonay inaan ku daro halkan idinka soo gudbiyo waxa weeyaan shaqada wasaaradda arrimaha dibadda aanu hayno. shaqada wasaaradda arrimaha dibadda waxay u kala baxdaa oo u qorshaysan tahay mid wasaaradda oo wasiirku nagu hogaaminayo Saacid Cali Shire oo anaga ka maxay wakiiladeeda dalalka aan joogno aan maxay ka shaqeyno, iyo mid taxriirka guud ee xukuumadda oo madaxweynuhu maxay xilka noogu hayo anaga noo soo gudbiyo oo ilaa wasaaradaha ku shaqeeya. runtii waxaan aaminsanahay muddadii marka sanadkii ugu dambeysay shaqada ay wasaaraddu qabatay oo waliba aan oran karo xafiiskaygan Sweden u qabtay inay ahayd shaqo aan ka dhicin 5 sano ugu dambeysay ama 10 sano ugu dambeysay. waxa laga yaabaa anaga ka wasaaradahan amba xafiisyada dibaddu maadaama shaqada aanu haynaa ay tahay sirtii qaranka, maadaama ay tahay xiriirkii aan loo lahayn adduunyada, in aanan inta badan saxaafadda kala xiriirin, in aanan oranin waxaas dhacaya, waayo dantaada iyo sirtaada marka la helo cadowgaaguna ka faa'iideysanaya. runtii isbedel badan ayaa wadanka ka socda, anaguna waxaan aaminsanahay waliba ka Sweden ahaan safaaradda Sweden aaminsanahay in ay wax badan oo cadow badan iyo xarka badan oo loo soo xirxiray Somaliland aanu ka qabanay kana guuleysanay cid kasta oo ku ahayd dhibaato amba islahayd lugta qabo maxay horumarka Somaliland. waxa ugu dambeysay tii dawladda Soomaaliya oo aad mooday fikirkeedii siyaasadeed iyo tii ay ummadeeda iyo dalkeeda ku maamul lahayd in ay ku soo ururiso in ay cagta qabato horumarka iyo maxay dimuqraadiyadda Somaliland ka hana qaaday, taas oo ay meel kasta geed gaaban iyo geed dheer ba u koreen in ay waxyeeleeyaan oo ilaa iyo xitaa dhaqaalaha ay u soo maraan in Somaliland la xuno qabateeyo say wadanka maxay meel kasta uga xidhaan. runtii taas waa nasiib darro. waxaan doonayaa in marka hore madaxda Soomaaliya waliba qolada Muqdisho joogta
aan ku booriyo kulana talino in iyaga gudahooda ay isdhisaan oo xaafad ay kala xidhiin dhexdooda wax ka sameeyaan wixii wanaagana Somaliland kaga daydaan laakiin ay joojiyaan xasidka iyo nacaybshaha iyo xumaanta ay u qabaan haddii taas waa tale naga tahay haddii ay joojin waayaanna waanu naqaanaa sida la iskaga celiyo cadow kasta oo Somaliland soo weerara amba siyaasad ahaan ku soo weeraro amba ciidan ahaan ku soo weeraro waxaad ogtihiin shacbiga Somaliland ilaa maalintii madaxweyne Muuse Biixi iyo dimuqraadiyadda dhacday mar weerar la inagu soo qaado mar wasiirada Soomaaliya si dhisma ay ku soo galaan ciidda iyo qaranka Somaliland intaasna ay carqalad in laga abuuro run ahaantii hawlaha ugu waaweyn ee haydana taas ahayd international community-gana been loo sheegi jiray run ahaantii taasna aanu muddadii ugu dambeysay ilaa iyo waqtigaasi aanu xidhiidh toos ah iyo warbixin joogto ah la leenahay waxaan kaliya oo jeclahay inaad dhinaca rabaabo wasaaradaha arrimaha dibadda ee Suudaan iyo qaybaheeda kaleba amba xafiiskeeda safiirkan safaaradda Nairobi amba haata maxay hay'adda siida waxaan isku wadaarsanay ugu yaraan 80 qoraal iyo emailo intaabana aanu kaga hadlaynay oo aan maxay ugu shaqeynay uguna adeegnay qaranka aan mas'uuliyadda adag u hayno annaga ayaa cid walba ka jecel Somaliland oo waqtigeega siinayna waanu diyaar baanu nahay haddii ay wax qaldan yihiin in wax loo baahan la toosin in la noo sheego mid baan laakiin jeclahay shacbiga Somaliland meel kasta ay joogaan mas'uuliyad kasta ay hayaan amba waliba kow ka tahay saxaafadu in ay la xajcelo qarankooda u hayaan in aan maanta wax kasta website-yada lagu qorin inaan wax kasta oo inaga dhaliisheena aan la sheegin u fiirsada aanu si kala idin tilmaamin maamul goboleedada inta idinku xeersan ee Soomaaliya wax inta aynu sameynayno samaysaa ma jirto runtiina wax kasta oo ka soo baxa waxa ay waxyeelayaan waa qaranka waxa ay waxyeelayaan waa shaqada wasaaradda arrimaha dibadda hayso waxay waxyeelaysaa shaqada anigu aan hayo laakiin diyaar baan u ahay anigoo ku hadlaya afkii wasaaradda arrimaha dibadda xafiiskayga haddii wax dhaliili jirto ana u baahan waxaan u shaqeynaa waa qarankii haddii aad nooga baahantiin oo aan arkaysaa wax naga dhiman noo kaalaya waanu qaadanaynaa taladiina wasaaradda arrimaha dibadda haddii aad u haysaan wax toosin ah u keena oo maxay ku saxa idinkoo u turaya oo dalkiina iyo dadkiina u turaya idinka oo la jaan qaadaya xaaladda cusub ee ka soo cusboonaatay geeska Afrika wanaageedana leh dhibteedana leh maanta waxaan aaminsanahay Somaliland inay chance aad iyo aad u fiican ay haysato una baahannahay fursad aan kaga faa'iideysano haddaynu nahay guud ahaan shacbiga Somaliland iyo xukuumad ahaan annaga xukuumad ahaan iyo ka wasaarad ahaan waxaan naga go'an inaanu la jaan qaadno isbeddelka cusub ee ku soo kordhay mandaqada geeska Afrika runtiina dalkan aan joogo aan ku soo gabagabaynayaa Suudaan maanta waxa uu hormood ka yahay wadamadan maxay European Unionka ayuu hormood uga yahay inuu arrinka Soomaaliya iyo Somaliland maxay isagu ka ahaado mas'uul maadaama Ingiriiska uu ka baxay European Unionki tan laftigeedu waa shaqo aad u culus oo hortaala waa fursad una baahannahay qof kasta oo degan dalkan aan deganahay Suudaan ha ahaato jaaliyadda ha ahaato shakhsiyaadka ha ahaato qof kasta oo daneynaya Somaliland waxaan u baahanahay maanta inaynu mid noqono inaynu u midowno qarannimadeena iyo dalkeena Somaliland qof kastaana muddo kooban ayuu xilka hayaa laakiin waxa haraya waa qaranka aan maanta marka aan ku soo gabagabeynaya aan u midowno Somaliland wasaaradda arrimaha dibadda shaqadeedii way wadaa waana sii wadaysaa wixii detailsana xafiiska wad kala xiriir kartaan ciddii kale ee amba waliba saxaafadda ah ee nooga baahata shaqada aanu haynana diyaar baan u nahay maanta runtii waxaan halka la qaybsan doonaa wariye barkhad oo ka socda bahda Home Cable TV iyo TV-ga qaranka oo kale inaan la wadaagno waxyaalaha ka socda xafiiskan laakiin shaqada aanu haynaa ma aha shaqo public ah oo shacbiga iyo cid walba iyo cadawga loo soo bandhigayo waa shaqo ku socota waa dantii qaranka Somaliland baan wadnaa marka yaan iska khaldamin
wixii public ahaa iyo wixii sirti qaran ka ahayd waayahay daawadayaal maanta sidaad arkaysa waxaan ku sugannahay xafiiska safaaradda jamhuuriyadda somalilan ay ku leedahay waddanka Sweden iyadoo ambassador Zakariya Xasan Wacaays oo isagu ah safiirka Somaliland u fadhiya waddanka Sweden uu halkan ku qabtay maanta shir jaraa'id shirka jaraa'id kadib ayaa waxaanu dhowr su'aalood ka weydiinaynaa safiirka safiir maxaa keenay xilligan inaad shirkan jaraa'id qabataan inaad kaga hadashaan arrimaha dibadda iyo arrimo noocaas runtii waa mas'uuliyadna saaran shacbigayga markasta in xaalad jirto inaan u soo gudbino waxaan dalkan u hayno waa mas'uuliyad ay saaran xilkan qaranka u hayo waxa igu kalifay run ahaantii inaan shacbigayga la qaybsado in xukuumadda uu garwadeenka yahay Muuse Biix Cabdi iyo wasaaradda arrimaha dibadda oo uu horumar noogu yahay Saacad Cali Shire aan shacabkayga la qaybsano waxqabadka iyo wanaaga dalka jira run ahaantiina ummaddu hadaan la xasuusin xaaladaha jira iyo kolba sida u socdaan waxa laga yaabaa dadku inay wax ku mashquulaan waxa suurtagal ah dad siyaabo kala duwan u faa'iideysanaya taasoo runtii laftigeeda qayb ka ah dimuqraadiyadda amba mid xisbiyeysan ha noqoto ama mid dana gaar ah ha noqoto laga yaabaa barkood qof aniga doonaya inuu safiir noqdo inuu safaaradii Somaliland ay Sweden uga shaqeyso runtiina waxyaalaha kala cadeeyo ayuunba igu kalifay maanta kulankan isku nimi taasoo doonay ummadda inaan waada xogo dhigno shaqada muhiimka ah ee xukuumadda iyo wasaaradda arrimaha dibadda oo hayaan qaranka waayahay guud ahaan wasaaradda arrimaha dibadda oo adiguna aad ka tirsantahay wad safiiraad u tahay dhaliil aad u far badan baa jirta ayamahan waxa leeyahay dawladdii Soomaaliya ayaa aad u soo kacday xagga arrimaha dibadda Somaliland arrimaha dibaddu aad bay hoos dhulka u galeen marka maxaa sababay in heerkan la gaaro oo leeyahay dawladda Soomaaliya ay iska sareysa xagga arrimaha dibadda imika run ahaantii laba arrimood ayaan isleeyahay waa u gundhig mid waa koow Somaliland oo maanta noqotay wadan xiriir la leh wadan la danaynayo wadan maalgashi lagu sameynayo wadan ictiraafkii u dhawaaday wax kastaana marka ay soo dhawaadaan cid baa reaction ka samaysa oo taasi waa mid oo dhaqdhaqaaq waxa dhacaya inay yihiin wax cusub oo waddankeena u soo kordhay taasina aan kula talinayo cid kasta oo amba siyaasi ahaado amba ahaado muwaadin kale amba saxaafadda ahaato inay fiiro gaar u lahaadaan isbedelka ka dhacaya dalkeena talabaadna waxa weeyaan mid muddo soo jiitamisay qarankan wuxuu ku yimid tacabkii iyo halgankii ummadda Somaliland run ahaantii dawladaha laga gacan korrimisa laga sameeyay jiray Soomaaliya dawladahaasi kulli waxaa jiray bal inta aynu helayno ima samaysanaysan xukuumad marka bal Soomaaliyadiina wada matasha waa imka Soomaaliya la xiriiraba ma jirto oo shirkii ugu dambeysay Brussels lix madaxweynaha wada socday oo kala kacayo mid laba dantiisa gaarka u socday intaasi arrimaha siyaasaddu meelaha inoo taalo laakiin wixii kale ee wada shaqeyn ah ee labada dal mid walba wixiisa u xadeynaya inaan isku faragelin run ahaantii waxa nasiib darro ah qoladan ugu dambeysay ee marka sanadii barka teendhada lagu doortay in ay culeyskoodii iyo shaqadoodii ugu weyneed saareen sidii Somaliland u curyaami lahaayeen oo ay siyaasad arrimo dibadeed ha ahaato amba waxyaalaha xitaa lagu heshiiyey ee ahayd hawadoo kale inay ka baxaan runtii waa nasiib darro inay qaabka u dhaqmaan laakiin Somaliland xukuumad ahaan iyo wasaarad ahaanba diyaar baan nahay marka challenge-yada jiray ayaa laga yaabaa dadkeenu inuu ka yimi xagga reaction ka amba wasaaradda farta lagu taagayo amba la leeyahay cidda maxay inooga yaala policy laakiin waxaan u sheegnaa ummadda Somaliland meel kasta ay joogaan inaanu siyaasad ka fog leenahay ilaa iyo maantana anagu mal kuma faanayno mina lihin Soomaaliya saasaan u galay Soomaaliya waanu cuna qabataynay wayna ma qabato dhaqan ahaan Somaliland uma leh runtii laakiin waxaad moodaa iyaga inay ka noqotay fikir iyo hadallo ay soo jeedinayaan taana runtii goob kasta iyo arrin kasta ay sameeyeen waxaan u sheegnaa shacbiga Somaliland meel walba in aan hadii wixii soo qorshay aan kaga guuleysanay waxaan ugu dambeysay tii ay ilaa wasiirkooda planning ministerka iyo dawladda Soomaaliya isku raaceen qoladaasi oo ilaa xitaa maamul goboleedadu ay isku wada raaceen oo taasoo runtii wax laga naxa inagu waxaan idhahnaa waa walaaleyna Soomaaliya idhahnaa madaxdeena dadkeena Somaliland oo dhan madax
waxaan nidhaha wadadka walaalaheena laakiin waxaad moodaa iyaga in ay iskaga khaldan tahay kaliya aan sida cagta u qabanaa Somaliland runtii ummadda Somaliland meel kastoo joogto waxaan u sheegaynaa intaas ay suurtagal weeday shirkii Brussels ka dhacayna ku saabsan aniga maamul goboleedada iyo maxay qolada maxay Villa Somali joogta loo sameeyay go'aamadii ka soo baxayna wax Somaliland ka khusay ma jirin international community-guna ay qoraal bil ka hor soo gudbiyeen ilaa Somaliland special arrangement-keedii ay lahayd ayay leedahay kuma jirto anagu ka xafiis ahaana waan uga mahad celinay dawladda waayahay ambassador Zakariya idinku imika waxa sheegteen inaad idinka laftiinu shaqo wadaan wax ka shaqeynaysan laakiin hadii hawadii la qaatay oo dawladda Soomaaliya qaadatay oo dhaqaalihii dibadda ka yimaanay ay yiraahdeen waanu joojinay oo reer Yurub kala soo shirnay yiraahdeen idinkuna adigana waxa kamid ahayd war-saxaafadeedkaaga imka soo jeedisay in aad wixii secret yihiin oo siirka arrimaha dibadda waqti sii horeysay isaga laftiisu wuxuu waa secret waxa ayago marka hadii hawadii la qaatay dhaqaalihii la joojiyay waxaan secretkeedu ku aad waa maxay marka run ahaantii barqado marka lagu jiro arrin siyaasad yahay hawada waan maqlaynaa waxbaa jiray lagu heshiiyey oo lagala soo wareegay maxay kulay cidii gacanta ku haysay arrinkaasi waxa ku jiray wasaaradda dawladda hawada ayaa waday runtiina waxaan sheegay bulshada Somaliland kulli isbedel way dhacay u dhaci doona si aad wada sheegaysana runtii barqado maaha waxaan wadankeena wada la aqoonsay maaha aqoonsiguna inaga ayuu dhexdeeda ku jiraa oo inaynu is aqoonsano taan horta muhiimadda ugu weyn ka hadlawata tan kale maxay arrinka hawada runtii heshiis bay Soomaaliya Somaliland wada gaareen waa qoraal oo document-keedu waa la wada hayaa wasiir saxadna malaha ilaa 6-7 jeer buu ku jawaabay marka hadii cidi burcad badeed noqoto meel u istaagto lama oran karo moogtay waa lagu dhacay waa burcad badeed marka hawshii habkii laga soo qaadi lahaa iyo qaabkii loo sameyn lahaa uma meesha yaala laakiin wax walba waa document adduunyada xeer iyo heshiis bay ku socotaa marka runtii shacbiga Somaliland heshiiskii la galay iyo qaabkii wax loo sameeyay waa lagu daba jiraa runtiina natiijo fiican ma sugna waqtiga u dhaqsaha badan leh waayahay damaanta adaa ka wakiila wasaaradii wasiirkiina arrimaha dibadda aduguna aad wakiilka ka tahay waxa inta badan lagu eedayaa inuu saacad aad ugu mashquulsan yahay arrimaha mushtar uu yahay nin DB World aad uga sheekeeya iyo aad moodeen marka qaarkood inuu yahay wasiirka ganacsiga oo kale ama arrimaha maaliyadda qaabilsana iyadoo dadka mucaaradka iyo dadka reer Somaliland qaar badan oo kamid ah ay ku dhaliilaan inta uu ka sheekeeyo ama ka hadlo traafka iyo intuu shirkadaha ka hadlo waxa badan intuu shirkadaha iyo dhaqaalaha ka hadlo markaas uu muuqdo inuu ku mashquulsan yahay wasiirkii arrimaha dhaqaale oo aanu xagga traafka xoog saarin runtii arrinkaasi waxaan filayaa dadka leh ku eedeynaya wasiirka in ay ujeedo kale yihiin xafiiska aan fadhino iyo shaqadan hayo runtii suurtagal ma noqoteen haddaan wasiir saxad maxay oran igu dhiirigelin waqti gelin jundi gelin waxa xasuusta xafiiskan markaan furaynay inuu goobjoog u ahaa waxa jira intaas oo maxay gudiyo iyo wakiil sharafeed uu sameeyay runtii anu shakhsiyan saxad waxaan isku baranay markuu wasiirka qorsheynta ahaa أنا ها قدومي دلدا لين آدو شقة بدن شخصي آدو شقة بدن داعدا هذا هذا الكيس كوبي هاي كنا هبون ده حلقة وهايو هذا أنا شخصي أنا كشر حكرا وسير كنا معها مركز إنه كهاد له أرمها وسعره وأنا أشوفه شقة ويدرتي وحنكون مثل أعطانا هذا وكيلة دبده شقة وسير كنا يكمده أم بإنجليز كهان نقطه أم بهان نقطه محل إثيوبيا نقطه أم بإمارات كهان نقطه أم بسوريا نقطه وحا أنا قبنا لنا هدي أنا وسير كنت محل يسوي هجان كنا نقول دليجيت كرينين ما أنا قبنا مركا رنتي وحنو أركا ونمحل هذا لا الشيء وهذا لا أنسى وفوقين شقة وسير كنا ده أنا جا سكرية كل هذا يا كقيب oo shaqadii uu nagu empower gareeyay wili qabta ayaan qabanaa taxafiiska quruxda badan ummad badan oo Soomaaliland iyo xitaa dadka kale ay noo baahdaba sumcadeena iyo magaceena dhisayba qayb bay kala qaatay xafiiskan hadii aan maxay wasaaradda arrimaha dibadda aan maxay igu support gareenin tamuush mu jireen
marka runtii waxaan aaminsanahay nin aad u karti badan oo shaqo badan inuu yahay wasiir Sacad. waayahay matalan dowladda cusub ee Muuse Biixi iminka iyadoo 7 bilood jirtay qiyaastii ama 8 bilood dhaqdhaqaaq badan baa jiro dowladda Soomaaliya samaysay watii lagu shirayay ee Brussels lagu shiray madaxweynaha Soomaaliland iyo dowladda Soomaaliya iminka dibadda humay soo bixin dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo arrimaha dibadda may samaynin marka soo lama qaadan karo halka ay nusqaantu ay ka jirto ilaa iminka runtii barkhado waxaan ku xasuusinayaa adika wariyahan iyo saxaafadda kaleba jeclahay in arrinka aan leeyahay si siro soo qaataan shacbiga Soomaaliland aan jeclahay inaan maxay lagu dhalan habaabin dalkeena waxa ku dhacay mar alla doorashada ku dhacay in dagaal ay nagu soo qaaday dagaal baa nagu soo qaaday Soomaaliya nagu soo qaaday waxaan ku jiray dagaal dalkeena ku difaacino madaxweynaha iyo xukuumadda iyo dhammaan waxa la saaray si dalkeena loo difaaci lahaa run ahaantiina meel fiican bay maraysaa iyadoo taasi jirtay hadana dagaal sokeeye oo inaan u baahnayn baa jiray waxa jirtay ka soo kabashadii doorashooyinka marka runtii waxaan gudaheena ayaan dhisanaynay gudaheena ayaa wixii inaga ruuxmay aan saxanaynay cadowgeena aan u jawaabinay inaan Soomaaliland meel iska soo weerar ka ahayn inta kalena siyaasadii arrimaha dibadda anaga u wakiila anaga shaqaynayna shaqadeena wada run ahaantiina imka maadaama wax walba sidii loogu talagalay dalkeena waxaan rajaynaynaa in wafuud iman doonto insha Allah qurbaha waqtigii Ilaahay ka dhigana way noqon doontaa madaxweynuhu maxay galwadeen ka yahay su-aasha ugu dambaysa aan ku weydiinayo kolley siyaasadda gudaha iyo dibadda way isku xidhan yihiin marka dad badan oo reer Somaliland waxay aaminsan yihiin in dowladda ay ku mashquulsan tahay arrimo reero ama reeraha ay ku mashquulsan tahay waddanka gudihiisii oo reeraha iska ilaalinayso reeraha culays ka saartay dabana arrinta ay ku ilowday dibaddii iyo siyaasaddii naga dhaxaysay dowladda Soomaaliya iyo ictiraafkiiba marka arrinta ay ku soo wartaan ka xukuumadda runtii waxa ugu muhiimsan wax lagu mashquulo waa gudaha dan gudaha ku jirin dibadda waxba kama tiri kartid Soomaaliland yaa isku tashatay 7 ka sanadood iyo intii ka horeysay isku tashanay dalkeena ayaa ka koow ah iyo dadkiisa in lagu mashquulo markaan inagu dhisanahay in dibad mashquulka waxaan ka wadaa in cadaadis reero gooniya saarayso gudaha oo taas ku mashquulsan tahay dowladda oo xagga ictiraafka ka mashquulshay runtii arrinkaasi horta adigu adaa yiri ma aaminsani aanu safiir baan ahay shacbiga Soomaaliland mucaarid muxaafid ayaan wakiil u ahay madaxweynaha qarankuna oo qaranka Soomaaliland doorteen iyo xukuumaduna ummadda Soomaaliland oo dhan ay dhaxo yihiin marka waxa dad warxuma ka tashiila amba nin siyaasi oo dan leh amba dad dana kale leh amba dad kale oo qaab kale wax u heli jiray inay si kale u dhigaan baa laga yaabaa dalka iyo dadka ummadda Soomaaliland ayaa maxay loogu shaqeynayaa waayahay ambassador Sakariya Xasan Wacays aad iyo aad baa mahadsan waayahay daawadayaal inta waxaan ugu dhamaaday waraysigii aanu la yeelanay ambassador Sakariya Xasan Wacays oo maanta aanu ku soo booqnay xafiiska safaaradda Soomaaliland ku leedahay waddanka Sweden ee magaalada Stockholm iyadoo safiirku markii hore qabtay shirka jiraad kadibna aanu la yeelanay waraysi yar oo kooban waraysiga waxa diisu qaadayay anigu Barkhad Cabdullaahi Maxamed oo ku sugan xarunta Home Cable TV ee waddanka Sweden inta dib u kulmayna dhamaantiinba nabadgelyo